maxaad la murugoonaysaa ma waxaad u haysataa in aadan qurux badnayn qof baa aad u doonaya inuu sidaada oo kale u qurux badnaado kuwa badan baa lixaadkoodii waayay haddana qanacsan ma waxaad rabtaa lacag fara badan 30% dadka adduunka waa sabool qaar badan waxay ku nool yihiin $1 wax ka yar maalintii ma waxaad doonaysay oo aad weyday saaxiib kuwaan xitaa haysanin waalid ma dhadhanka cuntada ayaad nacday caruur ayaa gaajo u dhimanaysa ma adeegashada dukaamada waaweyn ayaad ku daashay dad baa qashinka ka dhex raadinaya alaabo moobilka kaa jabay miyaad la murugootay in badan baa mugdi ku nool oo iftiin koronto arag noloshooda ma noloshaa iska nacday bukaano badan oo ay ku xiran tahay oksijiinta neefta ayaa cisbitaalada jiifa wax kastana u bixinaya si ay u sii noolaadaan ma shaqo ayaad weyday mise shaqadii aad haysay ayaad nacday malaayiin ayaa shaqeeya 12 saacadood si ay u helaan hal waqti wax ay ma dadaal kastoo aad samaysay iyo darajo kastoo aad heshay ayaad haddana deganaan maskaxeed weyday nimcadii alla ku siiyay ayaad ku shukri weyday alla ayaa kuugu yeeraya in aad u noqoto oo aad camalo wanaagsan samayso ma qof aad jecleed ayaa kaa tagay oo aad la murugoonaysaa ma ogtahay in 8 bilyan oo qof dunidan ku nooshahay weydiiso Allah subhanahu wa ta'ala bedel khayr qaba inuu ku sii ma kuwa madax noqday maal iyo magac weyn yeeshay ayaad ka maseersan tahay ma ogtahay intooda badan in aysan si nabad ah u seexan madaxa faaruqin karin stress dartii kaligoodna suuqa dhex socon karin ma qof warkaa sheegay ayaad ka gubatay qaar baa xuriyadoodii waayay oo xabsiyada dhex jiifa haddaba ha ku lumi waqtigaaga tirinta dhibaatada yeysan kuu muuqan keliya waxyaabaha aadan haysan xasuuso oo ku xamdi naq nimcooyinka Alle oo dheh alxamdulillah